السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنا ونكسن داوديال meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay geeyiga Soomaaliya qodobadaan idin haya waxa qayb ka noqon doona madaxweyne Farmaajo oo qaadanaya go'aano la yaab leh oo ka careysiinaya xisbiga uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kulamadii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo xisbiga nabad iyo nolol oo albaabada loo furay ayaan ku soo gudbin doonaa sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa macawsleeda beesha xawaale oo dhabaha u galay rag ka tirsan kooxda al-shabaab waxa ay dileen 17 xubnood weerarku waxa uu ka dhacay xadka Hiiraan ee Shabeellada Dhexe waan ku soo gudbin doonaa waxaan kula wadaagi doonaa Cabdiqaadir Firdhiye iyo wafdu culus oo hogaaminayo oo imaanaya Muqdisho si ay Farmaajo ula kulmaan qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan saaxiibayaal idin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada haddii tahay markii kugu horeysana nagu soo biir oo subscribe dheh channelkan waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daamacnay ee soo dhawowdaa wade qodobkeena ugu horeeya ayaan ku bilaabayaa madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Muqdisho ayuu ku sugan yahay 48 saac la soo dhaafay wuxuu kordhiyay kulamada uu la qaadanayo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka aqalka sare iyo aqalka hoose inta badan kulamada waxa looga hadlayo waa arrimo waaweyn oo ku saabsan dib u doorashada madaxweyne Farmaajo sidaas si lamid ah qodobada kale ee laga wada hadlayo waa in madaxweyne Farmaajo xilligan uu qaado tallaabooyin dheeraad ah oo xisbiga nabad iyo nolol lagu ballaarinayo kala tagii Farmaajo iyo Fahad waxa ugu weyn oo isku qabteen ayaa ahayd in Farmaajo uu doonayo in xisbiga la ballaariyo iyo Fahad oo leh may xisbiga lama ballaarinayo ee waa in xisbigu intiisa uu ku dagaal tagaa hadda waxa la soo warinayaa Farmaajo inuu u sheegay xubnihiisa qaabilsan dhanka ololaha iyo dib u doorashadiisa in ay u diyaar garoobaan loolan weyn oo ay galaan iyo in la qaabilo dhammaan cid walba oo xisbiga nabad iyo nolol ku soo biiraysa khubaradu waxay leeyihiin inuu Farmaajo albaabada u furo xisbiga nabad iyo nolol waa arrin cajiib ah oo la sugayay waxaana Farmaajo looga baahan yahay in uu xataa ku adkeeyo xubnihiisa ololaha qaabilsan in si wanaagsan loo soo dhaweeyo shakhsi walba oo doonaya in xisbiga nabad iyo nolol uu ku soo biiro xisbigan waxa la leeyahay waxa ka soo muuqan doona xildhibaano ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose oo saameyntooda leh fagaarayaasha siyaasadda iyo warbaahintana si wacan looga yaqaano xildhibaano ka tirsan aqalka sare oo saameyntooda leh xisbiga nabad iyo nolol aad ugu baahan yahay sidaas si lamid ah waxa la leeyahay xisbiga waxa ku soo biiri doona shakhsiyaad kale oo ay u baahan yihiin kuwaas oo la sheegay in ay wax u goyn karaan xisbiga nabad iyo nolol maadaama doorasho uu galayo Farmaajo markan uu qaadayo tallaabooyinkan waxa la sheegay ka hor inuu sameeyay kulamo uu ku aadan arrimahaas iyo in arrimahaas laga wada shaqeeyo iyadoo xubnaha xisbigan ay sheegeen in arrinka la dhacsan yihiin markan waxaan aadaynaa Shabeellada Dhexe wararka laga helay xadka ay wadaagaan Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan ayaa waxay tilmaamayaan in koox ka tirsan al-shabaab dhabaha loo galay macawsleeda beesha xawaale oo hubeysan ayaa la sheegay inay wadada u galeen rag ka tirsan al-shabaab oo watay mootooyinka la yiraahdo Feekomta iyo laba cabdi bile dagaal qaatay ku dhawaad hal saacadood oo xiriir ayaa wuxuu ka dhacay dhabaha dheer ee isku xira Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan macawsleeda beesha xawaale oo digtoonaa feejignaana ku jiray aadna u hubeysana waxa la sheegay inay dileen 17 xubnood sargaal sare oo ka tirsan ciidanka macawsleeda beesha xawaale ayaa goordhow wuxuu ii sheegay in ay arkeen ragii ka tirsanaa shabaab oo qaarkood firxad ah markuu dagaalku socday ku dhawaad hal saac iyo 17 daqiiqo kadib waxa la sheegay in duqeymo xooggan la maqlay duqeymahaas waxa la sheegay in la eegtay intii ka badbaaday weerarkii ciidanka beesha xawaale wararku waxay tilmaamayaan in weerarkan uu ahaa mid khasaare ballaaran gaarsiiyay kooxda shabaab iyadoo oo la sheegay in saraakiisha sarsare ee kooxda shabaab ee Shabeellada Dhexe ay xilligan baqdin xooggan soo wajahday Shabeellada Dhexe culays xoog leh ayaa ka jira oo dhanka amniga ah khubaraduna waxay aaminsan yihiin waa in Shabeellada Dhexe cudud ciidan iyo waliba wax walba la isku geeyo sidii looga taqalusi lahaa kooxda shabaab ugu dambeyntiina madaxweynaha maamulka waqooyi bari Cabdiqaadir Firdhiye ayaa ku soo wajahan magaalada Muqdisho wuxuu la kulmi doonaa madaxweyne Farmaajo oo markan lagu boorinayo inuu ka qayb galo xafladda caleemasaarka Cabdiqaadir Firdhiye oo dhacaysa dabayaaqada bisha November wararka la helaya waxay tilmaamayaan in Cabdiqaadir Firdhiye imaantikiisa magaalada Muqdisho dabcan ay ku saabsanaan doonto qodobo waaweyn oo masiirka iyo mustaqbalka maamulka waqooyi bari taabanaya haddii Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay ka qayb galaan xafladda caleemasaarka Cabdiqaadir Firdhiye dabcan waa dhibco siyaasadeed oo ay ka qaateen dhinaca Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyadoo la soo warinayo in hadda xaaladuhu ay isbedeli karaan Cabdiqaadir Firdhiye dabcan markii maanta Muqdisho xataa wuxuu la kulmi doonaa xubno kamid ah midowga musharaxiinta mucaaradka
kuwaas oo kala hadli doono qodobo waaweyn oo dabcan arrimaha masiirka taabanaya iyadoo xogaha macluumaadka iyo warar kale helayana ay tilmaamayaan in uu doonayo in la kordhiyo saameyntiisa gobolka ee arrimaha Soomaaliya sida Cabdiqaadir Firdhiye saraakiil la shaqeysa laga soo xigtay guud ahaan saaxiibayaal wararkeen intaas ay ku dhan yihiin amaana Allah